السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنت وعنا ونكسن دمان داودياشدا قيمها iyo qadarinta mudano meel kasta joogtaan waqti kasta idin tahay waqtigu idin wacnaado badbaado iyo naxariista eebana korkiina ha ahaato. waynu kala baahnay waqti dheer baynu kala maqnayn. ilaahi subxaana wa tacaala caafimaad qabo waa suukan soo celiyey. waxaan ka wada daaranayaa barnaamijkii taxanaha ahaa ee taariikhdii nabigeeni maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh uu hakad inaga galay oo aynaan waxa weeyaan maalmahan soo gudbin. oon waxa weeyaan casharkiina ugu dambeeya oo ahaa su-aalo aynu isweydiinay ciddii kasoo jawaabtay kolley qofkii u horreeya ee kasoo jawaabay iyo inta ku xigtaba insha allahu tacaala waxaynu kusoo bandhigi doonaa insha allahu tacaala barnaamijyada dambe haddii ilaha ka dhiga insha allahu tacaala. balse waxaan kusoo fadhiistay waxaa inoo bilaabmay sanadkii cusbaa, sanadkeenii taariikhdeenii hijriyada oo waxa weeyaan kow inoo ah. waxaynu galnay sanad cusub, waxaa inoo soo dhammaaday sanadkaasoo ahaa 1441 oo caawana inoo bilaabmay uu inoo yahay 1442. waa taariikhdii hijriyada ahayd, waa taariikhdii bilaabantay waqtigii nabiga sala allahu caleyhi wasalam oo hijrooday oo miilaadigu ahayd 622. waa sanadii islaamka hijriyadu waqtigaasay la kowsatay hijrada nabiga sala allahu caleyhi wasalam. sanadkii koobaadna waqtigaasoo ahaa, maantana waxaa laga maraya laga joogaa 1442 ayay maraysaa. sali ajligeed waxaan usoo fadhiistay inaan muslimiinta caalam alislaam iyo gaar ahaan inta ku hadasha afka soomaaliga iyo meel kastay joogaan muslimiintu in aan hambalyo aan u diro. ilaahay subxaana wa tacaalana waxaanu ka baryaynaa inuu sanadkiisa inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo, caafimaad qab, cimri dherer iyo cibaado suuban. dhammaanna waxaan idin leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. ilaahay waxaan ka baryaynaa muslimiinta inta dhiban inuu ilaahay subxaana wa tacaala dhibka kor qaado, inta xanuunsan inuu ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad sareeca ilaahay subxaana wa tacaala ku arsaaqo. intii dhimatay ee walaalaheena inaga hooseysa ee ehelkeena ahayd ilaahay subxaana wa tacaala naxariistii janno ka waraabiyo. muslimiinta intii dhimatay ilaahay u naxariisto, inagana ilaahay subxaana wa tacaala inooga daba naxariisto. inteena caafimaad qabtana ilaahay subxaana wa tacaala caafimaadka inoo siyaadiyo, amnigana ilaahay subxaana wa tacaala inoo adkeeyo. caalam islaam inta khalkhal amni darro haysatana ilaahay subxaana wa tacaala uu ka kor qaado, uu beledkooda uga dhigo beladan aaminan. ilaahay subxaana wa tacaala uga dhigo madma-ina rakhaa. ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka baryaynaa. kullu caam wa antum bikhayr ayaan idin leeyahay. waqti kastay tahay haydin wacnaado. waxaanan idinku dhaafayaa
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.